ugu talagalay subxaanahu wa tacaala bil ayaga dembiga loogu dhaafo naxariis alla ay ku helaan naarta looga xoreeyo sidaa darteed ayaa maantana waxaa ka qubanaysa in murugyo ah waayo dayfkii qiimaha badnaa baa sii tegaya walaalayaal faaruqitaanka aadna faaruqaysa ramadaanow la maxsuunuun waa ka murugaysannahay waayo waxaa naga tegaysa bishii iimaanka waxaa naga tegayo gebagaba ah walaalayaal bishii rabbi subxaanahu wa tacaala dhexdeeda uu yeelay khayraad iyo barakooyin badan mar allaala markay tagtay rawaxda walaalayaal waxaa dhici karta inay dad fara badan ka tagtay aan loo dembi dhaafin aan qoorahooda naarta laga xoraynin hal maalin aan soomin rabbi aan u dhowaan subxaanahu wa tacaala waxaase ka murug badan oo ka naxdin badan dadka xaaladoodu saa ay tahay inay yihiin dadka loogu talagalay inay ramadaan ka dambe gaari doonin inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun man xurima khayraha faqad xurim qof allaala qofka khayrkeeda laga qadiyo laga xaaraantinimeeyo aan la siinin oo aan helin waa qof la xaaraantinimeeyey waa qof macnaha hoogay waa qof dulloobay khayr oo dhanna laga xarimay walaalayaal yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam war dadka iimaanka laga helay buu yidhi ilaahay waxaa korkiina lagu qoray siyaam waxaa laydinka rabaa inaad soontaan yaa ayuha aladiina aamanuu naada rabbi xaggii ka timid waaye waxaa inooga timid khaaliqa boqorkiina qalqay ilaahiina abuuray yay u socotaa in allaala inta iimaan leh oo wiil ah oo gabar ah oo rag ah oo dumar ah yaa ayuha aladiina aamanuu qof iimaan leh ma maqlo ilaa waa istaagaa ilaa waa soo baraaruga ilaa waa soo jeestaa waayo yaa ayuha aladiina aamanuu qur-aanku markuu tilmaamo waxbaa laga reebaa ama waxbaa la faraa maxaa loo yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ayagaa wax maqla ayagaa aayaadka alla dhegaysta ayagaa ilaahay naadadiisa u dheg raariciya war dadka iimaanka leh ee jecel inay imaqlaanow war dadka iimaanka leh ee i rumeeyeyow war dadka iimaanka leh ee rabbi amarkiisa qaadanayow hee kutiba calaykum asiyaam soom baa laydinku qoray sooma isla markii amarkay qaataan haddaan soonna maxaan helaynaa haddaan soonna maxaa noo ballan qaadaysaa haddaan soonna maxaan noqonaynaa maya isla markii amarka allay fuliyaan isla markii diinta allay ku dhaqmaan yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam sooma buu dhaha ilah subxaana wa tacaala haddaba hala sooma ma sahlana maalintii oo dhan waxa cunin adoo baahan maalintii oo dhan waxa cabin adigoo ooman maalintii oo dhan ha gudanin shahwadaada xalaasha ah adoo u baahan markaasaa la sabargeliyey oo la yidhi idinka keligiin maahane kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waa dadkii adinka idinka horreeyey sidii loogu qoray oo kale aan soonne maxaan helaynaa hadda lacallakum tattaquuna inaad cabsataan baa la arkaa buu yidhi ilah subxaana wa tacaala war waa cabsanaysaan soonka cabsi buu idiin siyaadinayaa alla ka cabsigiinaa badanaaya alla ka cabsi siyaadaad helaysaan alla ka cabsiga waa sacaadada adduun inta aakhiro waxa lagu helo bishii lagu helaayaan ku jirnaa bishii la baranayaan ku jirnaa lacallakum tattaquun oo macnaheedu ay tahay qofka saa'imka ah ee sooman asagoo baahan ama ooman ayaa laga yaabaa inuu arko asagoo keligiis ah cunto iyo biyo iyo baad cunto iyo biyo iyo baad intaasoo dhan asagoosa u sii baahan ayaa laga yaabaa inuu arko ayadoo xaaladiisu ay sidaa tahay ayaa waxaa dhacaysa inuusan gacan u taagin waa ooman tahay maxaa u cabi weysay waad baahan tahay maxaad u cuni weysay shahwadaadii baa ku haysee maxaad u gudan weysay lacallakum tattaquun inaad cabsataan baad mudan tihiin alla ka cabsi gacantuu u haatin waayey waa ilaah buu ka cabsaday waa cuni waayey waa ilaah buu ka cabsaday waa cabi waayey waa ilaah buu ka cabsaday wuu jimaaci waayey waa ilaah buu ka cabsaday subxaana wa tacaala lacallakum tattaquun mar allaala markaad soonka saan u barataan
soonku waa dhammaanaya wixii lagaa xaaraantinimeeyey sida aad biyaha iyo baadka gacanta ugu taagi weysay oo kale uga joogso sidii aad soonka ood u samayn weysay wixii ilaahay kuu diiday oo aad ilaahay uga cabsatay maalmaha kale xumaanta macaasida dembiga waxa alla diiday saasoo kale markaa uga cabso lacallakum tattaquun inaad cabsataan baa la arkaa buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala ramadaan waa bil aan jecelnahay wayna jeceshahay walaalayaal sanadkii hal mar bay nagu soo gaaf wareegtaa way timaadaa mar allaala markay timaado qolo badan oo sanadkii hore ay qaabishay aragtay amase ay goobjoog ahaa ay adduunka ka weysaa hadday baxdo walaalayaal soo noqodkeeda dambe dad badan oo annaga naga mid ah oo ramadaankan soomay oo qiyaamay oo rabbi u dhowaaday bay weyn doontaa si aysan u dhicin khasaaro aan ka faa'iidaysano saysan u dhicin inaan ku khasaarno aan maanta ka faa'iidaysano lacallakum tattaquuna inaad cabsataan baan mudan tihiin meeqa qof oo ciidda ka hoos maray walaalayaal waynala qiyaameen waynala taraawaxeen waynala ciideen waynala soomeen hadda aaway qof walboo maalin baad saa noqon doontaa qof walboo maalin bay ramadaan ku wey doontaa maalin bay ramadaan ku tabi doontaa maalin bay ramadaan markay timaado adi iyo iida aadan is arki doonin xaaladda intaan la gaarin baa laga faa'iidaystaa walaalayaal ramadaankii 10 dambaanu maraynaa gebagabaanu ku jirnaa in badan baa ka faa'iidaysatay hanii'an lakum in badan baa ka faa'iidaysan weysay in badan baa xumaan iyo waxyaabo kale ku sagootiyey kuna soo dhoweeyey cidka muslimka ah waa inaad rabbiga ogaato daacada alla ku socoto ramadaan bilaha kale yaysan kaala mid noqonin naxariis ilaahay darteed ayaaman macduudaad maalmo tirsan soomaa nala dhahay nalama dhihin sanadka oo dhan sooma goormay soomaynaa maalmo yar 29 maalmood kama yaraato 30na kama badato sida ilaahay uu u tilmaamay subxaanahu wa tacaala dadka soonka yaqaana waxay tamaninayaan oo ay jeclaanayaan sanadka oo dhan inuu soo noqdo nafaxaadka naxariisaha iimaanka masjidka buuxa sida laysugu naxariisanayo sadaqada la bixinaya darteed laakiin xikmadda alleh ayaa wax kasta ka weyn ayaaman macduudaad waa maalmo farakotiris ah diinta naxariisteeda horay ugu sii soco faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin uqar qof kastoo mariid ahoo buka qofkii safar ku jiroon dhulkiisa joogin ha cuno hana cabo dib dambana ha ka keena buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariista ilaahay fiiriya ayadoo saa ay tahay oo raxmadda allay nagu qubanaysaan ramadaan kusii dhex jirnaa walaalayaal ramadaan waa tadriib ramadaan waa tababar ramadaan waa bil ilaah subxaanahu wa tacaala ummadda uu ugu talagalay naxariis dheeraada inay helaan nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu wax badan tilmaamay kana hadlay qiimaha soonku uu leeyahay tababarkan aan qaadanay mar allaala markuu soon ku dhammaado 11 bilood uu naga maqan yahay ayaa la rabaa in alla ka cabsiga hadda la bartay walaalayaal lagu sii socdo la sii laba jibaaro ilaa ramadaanka dambe uu ka yimaado haddii rabbi idmo subxaanahu wa tacaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam camal walbo oo bani aadam ku qabsado asagaa iska leh ilaa soonka ma ahane tashriifkiisa fiiri haddana kullu camal ibni aadam lah camal walbo bani aadam ku samaysto asaa iska leh soonka ma ahane fa innahu lii anaa leh buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala ilaa soonka ma ahane fa innahu lii wa ana ajzi bih anaa leh anaana abaalgudaaya anaa abaalkiisa bixinaaya soonka adaa soomay sakada adaa la baxay xajka adaa xajiyey xijaabka gabadha adaa qaadatay sadaqada adaa dhiibay intii oo dhan adaa sameeyey soonkana adaa soomay laakiin allah loo tiiriye subxaanahu wa tacaala intaanoo kale adaa lagu soo leexiyey waa tashriif waa sharaf gooni ah oo soonku leeyahay waa cibaadada sirta ah ee ka dhaxaysa ilaahay iyo addoonkiisa subxaanahu wa tacaala wariyaa og qofkaas inuu soomaya in kaloon ilaah yahayn subxaanahu wa tacaala wariyaa i og inaan soomanahay oon alla ahayn inaan soo cunon cabo oon dhexdiinna soo fadhiistaan idin dhihi karaa waa soomanahay cariyaa i dhihi kara ma soonid ka bax masaajidkoon ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala fa innahu lii anaa leh anaa iskale buu ilah leeyahy subxaanahu wa tacaala war tashriifkii camalkii noocaasaan ku ciyaarnay
waa la soomaya dibnada la ciyaara, waa la soomaya leedhuba la ciyaara, waa la soomaya turba la ciyaara, waa la soomaya walisxamana, waa la soomaya aflagaadaa jirta, waa la soomaya soonku muxuu noqday walaalayaal? ma bariis iyo caano laga tagaa? ma insoorta iyo muuskii wax lamidka laga tagaa? maxaa dhacon camalkayna soonka uga dhigi weynay camalkii ilaahay xaggiisa xaqiiqda ka ahaa walaalayaal? fa innahu lii, anaa leh. waa ku ciyaaraysaa, anaa leh, waxbaad ku dhex xamanaysaa. ilaahay baa dhahaya anaa iska leh, xumaan baad kusii dhex samaynaysaa. saa darteed soonku yuu soonku noocaan noqonin. qofkaan ka tegin qowl zuur, qofkaan ka tegin camal lagu camal qabta zuurka, ilaahay dan iyo xaaje kama laha inuu tacaamkiisii sharaabkiisa ka tago. maxaad cunto xalaalo uga tagtay haddaad xaaraan ku afurayso? fa innahu lii wa ana ajzi bihi. waa cibaadada noocaa ah, waa cibaadadaa sare. shalay bay noo timid, maanta waa naga sii sagootinaynaa, way naga sii socotaa walaalayaal. ma naqaana xaalkeenna suu yahay, ma naqaana soonkeena meeshuu alla agtiisa ka gaarsiiyeysan yahay. war badanaa oo badanaa saa'im soomay, soonkiisana aan ka faa'idin ilaa baahiyii oon ma ahane. maantao dhan buu soonnaa, waa la addimay, timir buu cunayaa, sanbusuu cunayaa, waxbuu cunayaa, alla agtiisana wax uma yaalla subxaanahu wa tacaala. wallaahi haddaan ogaan lahayn hal rakaco, hal salaad oo nala ka aqbalo, ilaahay baan sujuudo shukri ugu dhici lahayn. dadka wanaagsan baa dhihi jiray, waxay isku darsan jireen cabsi iyo camal wanaagsan, amni iyo camal xumaan isku darsanay walaalayaal. aaminna waa nahay, camalkeennana ma fiicna. waxaan aamin ka noqonay makriga alla subxaana wa tacaala, wax fiicanna ma hayno. 6 bilood allay ka baryayaan inuu ramadaan gaarsiiyo, 6 bilood oo kale allay ka baryayaan soonkay soomeen inuu ilaahay ka aqbalo subxaana wa tacaala. sanadkii oo dhan afkooda ramadaan baa ku jira. marna ay leeyihin allahuma balliqna ramadaan, marna ay leeyihin ilaahu soonkaan soonnay naga aqbal. maalinta soonka afka la furo yaa soon magaciisa noogu dambeeya. maalintii ramadaan afka la furo, ciidda la ciido, soonka dambe allahna gaarsiiyo. 6 bil baa la cabsanaa oo la leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ay leeyihiin ilaahu naga aqbal, waa soonkaan soonnay. haddaba ilaah wuxuu leeyahay ila soonka ma ahane. fa innahu lii, anaa leh, wa ana ajzi bihi, anaa abaalkiisa gudaaya. soonka buu ilah yidhi subxaana wa tacaala. intaa maxaa lagu daray? soonku waa wiqaayo, waa jun, waa gaashaan. soonkan aad u jeedaan ma sahlana, wuxuu wiqaaye u yahay, kaaga yahay naarta. adi io naarta maxaa idin dhexayn karaa? soonka. adi io macaasida maxaa idin kala teedi karaa? waa soonka. man saama ramadaan iimaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih. qofkii ramadaan soomo, una sooma iimaan, una sooma ixtisaab, waxaa la dhaafaa dembigiisa wixii tegey. dembigiisa wixii tegaa ilaahay saamaxa subxaana wa tacaala. baahidana hayse ma taqaaniin? ma naqaano. baahidana hayse waxaan u qaadanay dumarkana dahab, raggana doolar. baahidana hayse ma aha dahab iyo doolar walaalayaal. baahidana hayse waa dembi dhaaf. baahidana hayse waa in ilaahayna cafiye subxaana wa tacaala. baahidana hayse waa in ilaahayna dhahaa addoonkaygu waan ku cafiyey, waa kuu dhaafay. haddii ilaahay ku dhaho waa ku cafiyey, waxa kaloo kuu dhiman maxaa waaye? waxa aad dalbaysa maxaa waaye? waxaa raadinaysa muxuu yahay? caaisha rasuulka u timid oo tiri yaa rasuul allah, haddaan ogaada leyla ay laylat alqadri ay tahay, maxaan ilaahay ka barya subxaana wa tacaala? maxaa dhahaa gabar caqli badan? laylatulqadri haddaan ogaado, hadday ii suura gasho, haddaan arko, maxaan ilaahay weydiistaa oon dhahaa? rasuulku muxuu ku yidhi quulii allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. waxaad dhahdaa ilaaha cafinta jecelow, iska key cafi, allow isaamax, allow ii dembi dhaaf. waa caaisha radia allahu canha. caaisha waad maqasheen gurigeeda makhribka marka la gaaro fanuusaa damaysaa, gaas lagu shubo ma laha. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hadduu rabo inuu qiyaam u kaco oo qiyaamuleyl uu tukado, ma u jeeda meeshuu ku tukanayo, ku sujuudayo mugdi daraaddeed, lugteedu iska dhaqaajinaa. ama qajaruufana sala allahu calayhi wasalam. 3 bil baa 2 noo dhammaato, tii 3aad noo dhalatay, aan gurigeena canjeero laga dubin, aan dab laga shidin. macnaha maxaa la yidhi? ilaahu dahab isii dheh lama dhihin. ilaahayow shab ayaan rabaa dheh lama dhihin. ilaahayow guriga iga bedel dheh lama dhihin. waa adduun walaalayaal. warkii shalay joogaa maanta ka maqan, ka maanta joogaa beri ka tegaaya. daaraha dhaadheer aad u jeedaan,
agarkooda dadkii dhintay aboor baa cunay walaalayaal maanta qabriyay ku jiraan way jeclaan lahaayeen inay nasiibkaan leenahay yeeshaan adduunka yimaadaan hal maalin ay nala soomaan laakiin hayhaata ma dhacaysa walaalayaal annagana maalin bayna qabsan doontaa maalin bay nagu dhici doontaa maalin baan saa noqon doonnaa maalin baa waxyaabo badan oo weyl iyo halaag ah aan u wacan doonnaa intaan la gaarin yaa fiican maanta in la dadaalo maalin baa la dhihi doonaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib muxuu samaynayaa fa asadaqa wa akun min alsaalixiin waa celinaa maanta war qof baahanaa jira war qof dhibaatan baa jira war qof aan kici karin baa jira war qof aan afur haysanin baa jira marka qarqaradu ay soo gaarto qofku sakaraad ku yimaado yuu dhahayaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib fa asadaqa wa akun min alsaalixiin waxaan jeclaan lahaa inaan wax baxsado goormay wax baxsanaysaa waxaa jeclaan lahaa inaan saalixiinta ka mid noqdo goormay saalixiinta ka mid noqonaysaa quulii allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii ilaahay hadduuna cafi lahaa ilaahay hadduu cafiskiisa heli lahayn rabbi waxaan ka baryaynaa inuuna cafiye walaalayaal dariiqa aan ku socono aan ka dhigna dariiqa cafinta alla lagu helo ramadaan markuu kow ahaa odayaal baa sheekaysanayey ganacsataa sheekaysanaysay meeqaan ka dhignaa meeqaan ku siyaadinaa waa bishii la taajiraayey war ma taajirin haddaysan soon wanaagsan iyo qiyaam fiican qiyaamin waxaase taajiray oo ribxay qofka soomay ilahna soonka ka aqbalay subxaanahu wa tacaala waxaa liibaanay qofka inta qiyaamay qiyaamka alla ka aqbalay waxaa liibaanay qofka rabbigii caabuday taacada alla ku dadaalay man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbihi qofkii ramadaan istaaga una istaaga dembi dhaaf weydiisi macnaha ixsaan u istaaga iimaan rumayn iyo ixtisaab iyo ixtisaab gufira lahu maa taqadama min denbih wax allaala waxa dembigiisa ah yaa ilaahay cafinaya subxaanahu wa tacaala walaalayaal aan noqono dad baraarugsan aan ogaana bishii khayrka inay gebagaba tahay aan ogaana bishii khayrka inay tagayso aan ogaana bisha khayrka inay nagu soo noqon doonto annagoo joogna iyo in kale inaanan ogayn tii noogu dambaysay hadday tahayna inuu rabbi nooga dhigo kuwii laga aqbalay tay wax noo dhiman yihiinna inuu ilaahay sooman fara badan oo dembi dhaaf aan ku helno ilaahayna gaarsiiya subxaana wa tacaala dhihi mayno aan lacag badan ku helno dhihi mayno ay badeecadu noogu baxdo dhihi mayno uu burku noogu gadmo dhihi mayno ay saliiddu noogu gadanto laakiin waxaan dhahaynaa soon ilaahay naga aqbalo subxaanahu wa tacaala soon ilaahay noogu dembi dhaafo subxaanahu wa tacaala soon ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag aan kaga gaarno taasaan markaa tilmaamaynaa soonku waa jin waa wiqaayo waa gaashaan qofka ayuu gaashaan u yahay naartuu ka gaashaaminaya nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam haddii aakhiro la tago waxaa la furayaa albaab ka mida albaabaha jannada rayaan baa lagu magacaabaa waa baabu rayaan waxaa ka gala saa'imiinta waxaa ka gala dadka sooma waxaa ka gala dadka saa'imiinta ah waa la furayaa munaadi baa naadinaya ayna saa'imuun awa saa'imiinti war aawa dadkii soomi jiray war aawa dadkii baahida iyo oonka u adkaystay war aawa dadkii haajirada iyo kuleelka duurka oonka ku sabray ayna saa'imuun istaaga albaabka rayaanka gala allahu akbar ka war haddaad ku jirto ood istaagto ood socoto oo baabu rayaan aad ku sii tallaabsanayso farxad intee la eg badan ka war haddaadan ku jirin laa ilaaha ila allah haddaadan ka mid ahayn ayna saa'imuun waa fadhisaa ilin qof ayaga ahayn oo kici kara ma laha meel lagu dhuunta ma aha ina adeer ma joogo qabyaad laguma galo cadaalad baa lagu galaa qof shaqeeyey oo taacada alla ku dadaalaa gala ayna saa'imuun istaaga waa istaagayaan buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam albaabka rayaan bay ku tallaabsanayaan wayna ka gelayaan axadka ugu dambeeya markuu gala albaabka waa la xiraa qof ayaga ahayn oo gelaya mala buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ma soome bannaankuu taagan yahay ma soonte bannaankay taaganta aawa dadkaan soomin cudurdaarna lahayn war aawa dadka soonkuu dhibo dad soonka ka naxa jira dad soonka dhibayaa jira wax kalena uma dhibayee waa iimaan la'aan yaa ayuha aladiina aamanuu inta bayna ku jireen ilaahay iimaanka uu dadka ugu magacaabaysan ku jirin qole waxaa jirta beri soon waaye marka la dhaho xanuun ku bilowda gaas aysan qabin baa ku bilowda ber xanuun aysan qabin baa ku bilowda maalinta la dhaho beri ciid way caafimaadaan laa xawla walaa quwata ila billaah
soonka qiimaha uu leeyahay haddaan ogaan lahayn xaaladdaa nisaan ma noqon lahayn. dad baa 6 bilood ilaahay ka tuugi jira, ilaahu igaarsii, ilaahu igaarsii, allahu igaarsii. dad annaga naga mida marka cishaa'iga la tukado ee la istaaga taraawiixda habeenka ugu horeeya maxaa dhacay buu leeyahay, maba la socdaba, lama socdo. aaw diyaargarowgii aakhiro, war aaway aakhira diyaargarowgii loo diyaargaroobaayey. diyaargarowgeennii diyaargarow adduun muu noqday, diyaargarowgeenna diyaargarow akoon muu noqday, diyaargarowgeena diyaar guur muu noqday, diyaargarowgeena diyaar baabuur la raadiyo, guryo la raadiyo muu noqday. walaalayaal, waxaan adduunkaa looga tagaa saa tilmaannay. waxa ku anfacay waa camal saalix, waxa ku anfacay waa ramadaan aad soontay, waxa ku anfacay waa tilaabo qur'aan oo aad akhrisay. saa darteed saa'imiinta way gelayaan. axad ayaga ka mid ah, axad ayaga ka mid oo axad ayaga aan ka mid ahayn oo gelayana ma jiro. bannaankay taagan yihiin. ayna saa'imuun, saa'imiin aaway. saa'in muxuu yahay? soonse maxaa laga wadaa? soonkan hadda tilmaannay ma aha. waa soon cibaado la socota, waa soon aan dad lagu dhicin, waa soon aan dad lagu qiyaanin, waa soon aan ribo lagu cunin, waa soon aan dad lagu xaman, waa soon aan dhiig lagu daadinin, waa soon ilaahay dartii loo soomay, xaaraanna aan lagu afurin. ayna saa'imuun wasaa'imiina wasaa'imaat. aw wiilashii soonka badnaa, awa gabdhihii saa'imaadka ahaa ee soonka badnaa, albaabkaasay ka gelayaan. idan walaalayaal, soonku saasuu wiqaaya naarta kaaga noqonaa, macaasidana wuxuu kaaga yahay xijaab iyo gaashaan. nebiga intaa wuxuu ku daray sala allahu calayhi wasalam, hadday dhacdo inuu maalin axad idinka mida sooman yahay, yuusan rafad samaynin, yuusan buuqin, yuusan suuqa ku qaylinin, waxyaabo fara badan oo arrimooyinkaas ha iska ilaaliyo. hadday dhacdo fa in saabahu axad aw qaatalah falyaqul innii saa'im. waa soomanahay. waraa caytamin, saa'im baa tahee. saa'im ma caytamo, saa'ima dad lama dagaasho, saa'im dadka ma xanto, saa'ima dadka ma xamato. haddiise ay dhacdo in lagu maago adoo iska fadhiya lagu gardaraysto, waa soomanahay dheh. walaal idhaaf, afkeyga ilaahay uu xiran yahay subxaana wa tacaala. falyaqul innii imru'u saa'im, shaksi saa'imaan ahay dheh. maxaa intaa ka baranaynaa? waxaan ka baranaynaa xilmi iyo dulqaad, inaan sabri karno, inaan adkaysan karno, inaan ummadda cafin karno. soonkaa laga bartaa. waa soomantahay qofaa ku cay labaad ugu jawaabtay, waa soomantahay qofaa dharbaca kuu dhuftay laba iyo haraatiya isugu dartay. falyaqul innii saa'im. walaalow idhaaf, ani mas caytamaayo, ma kula caytamaya dheh. war anigu wax ma ihi dheh qof oo xumaan ku afuraaya. wuu ku caayay innii saa'im, wuu ku haraatiyey innii saa'im, dhib buu ku gaarsiiyey innii saa'im. xishoonaya innii saa'im, difaac weyn bay kuu noqonaysaa marka. nebiga intuu dhaartay sala allahu calayhi wasalam ayuu yidhi khuluufka, karka iyo urka qofka saa'imkaa afkiisa ka soo baxa atyab cinda allah min riixi lmiski. wasaqda afkaa ka soo baxayso. ka waran camalka fiican aad qabato, ka waran camalka fiican oo aad samayso, ka waran salaada iyo tilaawada qur'aanka iyo dikriga iyo sadaqada, urka afkaaga ka soo baxay ayaa wuxuu ka caraf batay riixda miskiga ah. min riixi lmiski way la caraf eg tahay ma aha, way ka caraf badan tahay. waayo yuu carfi weysay. waa af ilaahay lagu xusay subxaana wa tacaala. af lagu soomay soo ma ah, af taraawiix lagu tukaday, af qiyaam lagu sameeyey, af qur'aan lagu akhriyey, af ilaah subxaanahu wa tacaala lagu weyneeyey. markaasuu ilaah tilmaamaya uu leeyahay adyabu cinda allah min riixi lmiski. qofka hadduusan muddo wax cunin afkiisa taqyiir baa ku dhaca, doorsoon baa ku dhaca, waa isbedelaa. dadkaa dhibsadaa, weligood ha dhibsadaano. adyab cinda allaahe min riixi lmiski. miskiga riixda waa kaga caraf badan tahay buu yidhi rasuulka sal allahu alayh wasalam. tuwaaka maa lagu cunay waa maya, qaad maa lagu cunay walaalayaal waa maya, khamre maa lagu cabay waa maya, sigaar maa lagu cabay waa maya. allahu akbar. adyab cinda allah min riixi lmiski. riixda miskiga way kaga caraf badan tahay buu leeyahay rasuulka sal allahu alayh wasalam. lisaa'imi farxataan. ninka saa'imka wuxuu ku gebagabeeyey xadiidka laba mar buu farxaa. marka koowaad ee uu farxaayo waa marka la afuraayo. muxuu ku farxayaa? afurkiisa. ilaah ayaa u fasaxay subxaana wa tacaala. maantoo dhanna waajibkii alluu gutay subxaana wa tacaala. waa soonnaa maantoo dhan, amarkii allana waa qaatay, ma suuxin, ma dhimanin, wadna uma istaagin. haddana cuntadii xalaasha ahayd ee ilaahay uu ka reebay yaa la dhahay cun. allahu akbar markuu dhaho muadinka bismi illaah, timir buu cunayaa, biyuu cabayaa,
sanbursuu cunayaa, kackac buu cunayaa, mashmash buu cunayaa, nafaquu cunayaa. masii wadaa waxyaabo badan oo noocaas ah ayuu ilaah subxaana wa tacaala u fasaxay oo la yidhi cun. idan waa farxaya. marka labaad ee uu farxaya saa'imka waa goormee? waa markuu ilaahay la kulmo subxaanahu wa tacaala. allahu akbar. ilahay buu hortaagan yahay. muxuu sugayaa jazo? muxuu sugayaa abaal? muxuu sugayaa mushqaayadiisa? muxuu sugayaa raatibkiisa? suuqa ninka ka shaqeeya marka 30 maalmood ay u dhammaato farxad meel isdhiga mala sama. muxuu ku farxayaa? dhididkiisii wixii uu shaqaystay baa la siinayaa abaalkiisa. laga yaaba xaloo dhanba inaysa hurdo ka dhici kusoo dhicinba bir marka bisha la qaadanayo. waayo farx waa ku farxayaa, waayo asaa shaqaystay. ka waran haddaad ilaahay hortaagan tahay maanta subxaana wa tacaala. haddaad maanta rabbi hortaagan tahay oo aad sugayso abaal uu kugu talagalay inuu ku siiyo. ninka suuqee booskaaga ah laga yaabee marka lacagta lagu siinaayo in liis lagula soo baxo. bisha 4teedana waa maqnayd, 8deedana waad goysay, maalintaana waa soo daahday oo wax lagaa gooyay soo maa. meequu ku shaqaynaya? 15 kun, 20 dheh, 30, 40, 50 ba gaarsii. oo intaa lagaa sii jarjaraayo ayaan ku faraxnaa walaalayaal. laga yaaba salaad la'aan inaan ku shaqaynay, laga yaaba gabadhiis dukaanka soo gashaba inay kaa baxsan weysay, laga yaaba dhib iyo xaaraan iyo waxyaabo kale inaad isgadaal marisay. kaasaa lagu farxaye soon nadiif ah alle dartii loo soomay, boqorka rabbulcizaad hor taagan tahay, waad sugaysa inuu ku abaalgudo. farxaddaada maxay noqon doontaa walaal? iska soo qaad adiga oo ilaahay hor taagan subxaana wa tacaala. dad waxaa jira ilaahay markay hortagaan aan madax kor u qaadi karin. walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim, maxay leeyihiin? rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan inaa muuqinuun. markay ilaahay hortagaan haddaad arkayd mujrimiinta naakisuu hoosay u dhigayaan, waa foorarinayaan madaxyaalkooda. xaggay joogaan? cinda rabbihim, war rabbigaa hortiisa haddaad ku madax foorarisay maxaa ku yaala meesha? waad rajayn weysay ilaahi subxaana wa tacaala, ood sugi weysay abaalgud uu ku siiyo. maxaa ilaahay agtiisa ku yaala subxaana wa tacaala? waa ma jirto. naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa, maxay arkeen? jahannamo. wasamicnaa, maxay maqleen? guuxeedii qayladeeda. rabbanaa absarnaa wasamicnaa, maxay codsanayaan marka? farjicnaa, allowna celi. xaggee loo soo celinaa inta? maxay rabaan? inay camal fiican sameeyaan. farjicnaa hee nacmal saalixan, camal fiican aan qabano. dhihi maayaan aan dukaamada ku noqono, dhihi maayaan aan daaro kala jeexano, dhihi maayaan aan mataqaanaa gawaari kala iibsano, dhihi maayaan aan akoonka soo fiirino, dhihi maayaan. maxay leeyihiin? nacmal saalixan inaa muuqinuun. haddaan yaqiinsanay, haddaan yaqiinsanay, hadda aan yaqiinsanay inta inta joogno. xagga yaqiinteeda waxba ma anfacdo. ilaahay markuu tilmaamayo muxuu yidhi wabilaakhirati hum yuuqinuun ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun. walaalayaal, ramadaan ayaan dhexda oga jirnaa. in allaala intii taqsiir iyo gaboodfal naga dhacday inta noo dhim waa ka gaadhsiin karnaa. rabbi baan leenahay dembi dhaaf badan, rabbi baan leenahay cafin badan, rabbi baan leenahay noo dembi dhaafa. wixii qalado aan ka soo laabanana noo dhaafa. yaan istimraarin dembiga, yaa dembiga joogteen oonan ku soconin. aan noqono dad ramadaanka aad uga faa'iidaystaa. sababtuna waxay tahay hadduu ramadaan yimaado albaabaha jannadoo dhan baa la ballaqaa. hal albaab oo jannada ka mid ah oo saacaddan xihan ma jirto walaalayaal. albaabaha naarta oo dhanna waa la xiraa, hal albaab oo naarta ka mid ah oo furanna ma laha. maxaa soo haray? kuwiina dhibay, dembigana dhex geliyey, xaaraantana cunsiiyey, xumaanta noo qurxiyey, wanaagga noo xumeeyey. odaygii shaytaan ahaa. wasufidat الshayaaطiin, ayna katiinad baa lagu dhuftaa, waa la xiraa. jawigaasaan ku noolnahay maanta walaalayaal. jawi waxaan ku noolnahay jannadu ay furanta, samadu ay furan tahay, naartu ay xihan tahay, shaytaanna uu xihan yahay. jawigaa muxuu ku fiicnaa? jawigaa muxuu ku wanaagsanaa? wallaahi kuma wanaagsanayn in la fadhiisto maqaayada albaabkooda, kuma wanaagsanin qiila waqaale in la yidhaahdo, fadhi kudir laga sheekeeyo wallaahi kuma fiicnayn. laakiin aaway caqligii? kayis man daana nafsah, caqli waa ninka naftiisa xisaaba una shaqaysta geeri gadaasheeda. caajis, doqon, axmaq, dabbaal waa ninka naftiisa iska tamaniya. alla waa kuu dembi dhaafi doonaa. halkaasuu fadhiyaa. salaada cishaa'iga, salaada maqribka ah, rakacada ugu dambaysa ayuu ka soo gaaraa.
kursiga oo qofka ugu horeeya fadhi kudirka asaga fadhiista waa ramadaan saddex mar baan dhameeyey buu nin taabici ah 5 mar baan quraanka dhameeyey 10 baan dhameeyey maalinba waan ku dhameyn jiray jawigay fahmeen anigu ma fahmin wali jawiga waxaan u qaadanaa kaliya intuu meesha fadhiyo BBC ku dhageysto wax kasoo ku sheeg karo ku sheego markuu sii rawaxayana ba 4 xabo sambuusi madaasi ku jiro wata soonkana intaas oo haysanaa walaalayaal soonkeeni saasoo noqday akhyaarteeni soonkeeda saasoo noqday dhalinyaradeeni soonkeeda saasoo noqday dumarkeena soonkooda iskaba dhaafba ayaga xadith wala xaraj waxa ku dhex sugan iyo waxay ku dhex sameynayaan marka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiibna siiyey waa la idraak soo gaarid bil ramadaan la soo gaaraa nasiib ah walaalayaal wallaahi waa nimco qaali ah oo weyn inuu ilaahay bil ramadaan ku soo gaarsiiyey adiga oo nool oo caafimaad qaba oo soomi karaa laakiin qofkii intisaal la soo marsiiyey inta la soo gaarsiiyey soonku ku dhamaaday asagoon hal habeen naarta ee laga tirtirin ama laga xoreynin qoortiisa ka warama 3 mar soo rasuulku aamiin 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 ma dhihin markii waxa kamid aha inta jibriil yiri qof allah la qofka ramadaan soo gaara hadana aan loo dambi dhaafin oo saa cadaab ku mutaystay ku gala allah ku fogeeyay aamiin dheh aamiin baa yiri buu yiri nabiga muxuu aamiin u yiri sallallahu alayhi wasallam nabi naxariis badan buu ahaa wallahi uu soo waligii arsanin mara inta lagu cijibu qoslay sallallahu alayhi wasallam man dheer inta dhabarka laga saaro sidiisa iska ahaa sallallahu alayhi wasallam inta dhiigiisii la daadiyay buu dhahayay ilaahayow kuwan hanuuni ma oga xaqiiqda sida ay tahay waayo uu maanta aamiin u dhahay waayo uu dhihi waa jibriil u dhaaf habaarka ka daa wuu mutaystay ma kow ramadaan intuu kugu bilowday ee uu kugu dul dhammaaday oon hal habeen lagu dambi dhaafin oon ilaahay kuu naxariisanin waa mutaystay inuu jibriilna habaar